jawaabtu wax way dajaal waa jooga adduunka waa nool yahay hadda bal waqtigii nabigu noolaa adduunku kamid yahay dadka waxan adduunka joogu kamid yahay laakiin inuu soo baxo oo awoodiisu soo baxdo oo fasaad muujisto oo yaani wax way atbaac iyo dad raacsan yeesho oo waa waqtigeeda dambeeya ama joogidiisa wuu joogaa sidaana waxa ku tusaya xadiidka caamkee Tamiim ad-Dari qisadii jasaasada bil ikhtisaar waxay ahayd Tamiim ad-Dari ninka la yiraahdo ayaa dad eheladiisoo reerkiisa iyo isaga ayaa waxay ku safreen badda doon bay qaateen waa xilligii nabiga sallallahu alayhi wasallam markay meel dhex marayaan badda dhexdeeda doontiina ay saaran yihiin ayaa waxa dhacday mawjada ku kacay khatar bay galeen doontii baa la ciiriday markay khatar dareemeen ayagoo isla malaha waad halaagsamaysan waa ilaa sodomeeyeen nin waay ayaa waxay ku soo baxeen meel jasiirad ah markaasay wal jasiiradan inagu leexiya bal inaan xoogaa aan inta baddu dagayso jasiiradii markay ku leexdeen sidaadii ay uga dageen doonta uga dageenba waxay ku soo baxeen daabad xayawaan yar xayawaan kuusan oo isagoo dhan wada timo ah oo madaxiisa iyo dabadiisa aan la kala garanaynin kulli timo wada saaran yihiin isagoo dhan waa wada dhogor dhankeeba madax u ah oo dhankeeba minja lama kala yaqaan xayawaankaas ku soo baxay waa yaabeen meeshan cidlada iyo xayawaanka noocana waa garan waayeen wax yaraaday joogeen ba way la hadashay war maxaad ahaydeen af caadi kula hadlaysa war maxaad ahaydeen waa isu sheegeen oo dad meeshaas aanu sidaas aan ahayn adigu maxaad ahayd ina keenay tiri ina keena nin meeshana idin yeedhaye kaalayo soo baxa way raaceen ayadii waa horwad siday u waday ayaa waxay u geysay nin aad u weyn oo xoog badan oo xidhxidhan jasiiradu ku xidhxidhan lugaha iyo gacmaha iyo kulli isagoo dhan waa xidhan waa jeebaysan ninkii markay u yimaadeen buu marka warsaday warwarrama maxaad ahaydeen xageed ka timaadeen jasiiratul arab baan ka nimid wuxuu ka warsaday marka dhulka meelo kamida shaam meelo kamiduu ka warsaday war meeshii hebla la dhihi jiray wali timir ma ka baxdaa anaga markii noogu dambeysay timirtii waa ka baxdaa badii la dhihi jiray hebla wali biyo ma ku jiraan nabigii carabta ka warrama ma soo baxay carabi ma la dagaalantay mise way raacday way la dagaalameen inay rumeeyaan baa u roonaan lahayd buuri waa waday su'aalo badan u weydiinahay yee markii dambe waxay yidhi war adigu maxaad ahay adigu bal noo warrano maxaad ahay markaasuu wuxuu yidhi aniga waxaan ahay masiixu dajaal baan ahay waqtigaygii baanan sugayaa meeshaasaadna ku xidhnahay arrimaha aan idin weydiiyey markay yimaadaanna waqtigaygii baa soo dhow waan soo bixi doonaa nimankii warkaa markii la isdhaafsaday way soo noqdeen oo doontoodii bay dib u soo qaateen Tamiim ad-Dari nabigu u yimi sallallahu alayhi wasallam qisadii buu uga warramay nabiga markuu qisadii u sheegay saxaabadii buu nabigu isugu yeeray sallallahu alayhi wasallam hadal buu u jeediyay wuxuu yiri warkii hadda ka hor aan idinka sheegi jiray masiixi dajaal Tamiim ad-Dari baaba warkiisii wadee kaalaya buu nabigu sallallahu alayhi wasallam warkii Tamiim ad-Dari uu keenay buu nabigu saxaabada u sheegay salawaatu rabbi wa salaam alayhi xadiidkaasi marka wuxuu ku tusayaa masiixi dajaal hatta xilligii nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu jiray oo joogay oo jasiirad ku xidhan yahay waa jasiiradee Allahu a'lam dadka qaarkood hadda waxay leeyihiin war adduunkii oo dhan iska dhaaf korkiisa wixii yaalay gudihiisa wixii yaalay bay satellite-yadii soo sawireen nin inta la eego meel ku xidhxidhanimay waa la ogaan lahaay warkaasi meel saara la leeyahay waru kaadiya saas ma aha saas ma aha dhulka gudihiisana lama soo qaadin korkiisana lama soo qaadin
asraar iyo xaqaa'iq fara badan baa dhulka korkiisana taalla bini aadanna wax ka ogaanin waxaa ka daran qolo soo socoto qabiil dhan oo meel degan oo nusuustu sheegtay oo dhulka korkiisa degan oo wax ilaa hadda waxba laga ogeyn baa jira iskaba dhaaf nin meel ku xidhxidhane qabaa'il dhan iyo ummado dhan oo dhulka korkiisa degan oo weli aan la ogaanin baa jira oo nusuustu sheegtay sidaas daraaddeed masiixi dajaal waa nin jooga oo jira oo aadam carruurtiisii ka mid ah laakiin sifaadka iyo tilmaamaha kaga gedisan xilli buuna imaan doonaa jihada uu ka soo bixi doonana waxa weeye sida nebiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam meesha la yidhaahdo asbihaan ama dhanka khuraasaan buu ka soo bixi doonaa meesha marka ugu horraysa uu ka muuqan doono ee uu ka soo daahiri doono waa khuraasaan ama asbihaan asbihaan waxa weeye khuraasaan iyo waa muxuu ahaay dhulkan afghanistan iyo iiraan iyo muxuu ahaayey wilaayaadkii ama dhulkii ruushku haysan jiray iyo eriyadaasa waxaa la yidhahdaa asbihaan iyo khuraasaan iyo wixii intaasaa la yidhahda dhulkaasuu marka ka soo bixi doonaa dadka ugu horreeya raaci doona ee rumayn doona nebigu wuxuu ku sheegay sal lla alay wasalam inay yihiin 70,000 oo yuhuud ah ayaa ugu horreeya wax raaci doona rumayn doona nebiga sal lla alay wasalam oo ilaahnimadiisa